kormeerka maanta mas'uuliyiintani ay ku tageen xabsiga weyn ee dhawaan laga hirgeliyay deegaanka kiiloomitir 7 ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ujeedku ahaa in ay u kuurgalaan sida uu ugu diyaarsan yahay xabsigaasi hawsha la rabo inuu qabto waxaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ku helinayay kormeerka wasiirka cadaaladda xeraalyaha guud ee qaranka iyo taliyaha ciidanka asluubta wasiirka cadaaladda ayaa halka ku saxiixay heshiis muujinayay in qolyihii dhisay xabsigan oo qaab standard caalami ah loo dhisay uu ka soo wareegay haatanna wasaaradda iyo taliska ciidanka asluubtu ay si rasmi ah ula wareegeen maamulkiisa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in xabsigu wax weyn ka qaban doono duruufo badan oo jira isla markaana waxa uu inta raaciyay in dhul ballaaran oo xabsiga iyo xarunta taliska asluubta u dhaxeeya laga dhisi doono xarun islaami ah oo maxaabiista wax lagu bari doono sidaas soo aragtay mudane ra'iisul wasaare dhulka u dhaxeeya xabsiga dhexe xabsiga guud maanteeto halkan wasiirka cadaaladdu ku saxiixay heshiiskii hay'adihii caalamiga ah ee dhisay si nagu soo wareejiyaan iyo taliska guud oo hadda fadhino dhulka u dhaxeeya oo ilaa 500 oo mitir qiyaas ah waxa ka dhismi doona mashruuc weyn oo ah Islamic Center oo dadka maxaabiista lagu bar doono diinta iyo culumta kalaba ayna ku heli doonaan toosin iyo duruus diini ah ee maskaxeed iyo duruusta caamka ah oo guud ahaanba mashruucaas oo asaguna ku kici doona lacag gaaraysa 830,000 oo dollar oo muwaadiniin muxsiniin Soomaaliyeed ay ku deeqeen ee aan ahayn mid dibadda inooga yimid wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa xusay in dhamaystirka xabsigani uu muhiimad weyn u yahay bahda cadaaladda isla markaana uu meesha ka saari doono culaysadii saarnaa xabsiga dhexe isla markaa waxa uu noqon doonaa buu yiri xabsi la heera xabsiyada caalamiga ah halbeegada nooga jiro tubta amniga iyo cadaaladda in la horumariyo xabsiyada dalka tan waxay tusaale ka tahay marka horumarintaas aragtidaas fog oo ra'iisul wasaaraha iyo adeega iyo madaxweynaha aad qabtaan oo la rabo dalkan inaan u helno xabsiyo oo standardka caalamiga la jaan qaadi karo oo dadka dambiyadana lagu xukumana lagu hayn karo sida hadda xeer ilaalinta sheegaysay taasna marka maanta waa noo hirgashay insha Allah waad soo aragtay adigaba standardku uu leeyahay xabsigaas ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ugu dambeyntii sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii fulinta ee xukuumadda isla markaana dhamaystirka xabsigu qayb ka yahay barnaamijkaas inta waxa uu ku daray in 22 bishan aan ku jirno si rasmi ah oo uu howlgali doono xabsigani oo loogu magac daray xabsiga weyn ee Muqdisho sanadkani waxa weeyaan sanadkii fulinta 2019 xukuumadda nabad iyo nolol waxay ku shaqeynaysaa halbeegyo iyo ballan ay la galeen wasiiradu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre halbeegyadaas maxaa ka fulay maxaan ka fulin waa wax lagu xisaabtamayo maanta waxa uu inoo noqonayaa halbeeg weyn oo fulintiisii ay hirgashay in xabsigani sidaanu shirkii gaarka oo wada yeelanay afartayadu taliyaha wasiirka xeraalyaha guud iyo aniga ugu dambeyn 22 bisha inuu noqdo xabsi shaqeynaya oo shaqadii loogu talagalay dhammaan ay dhameystiran tahay haddii taliyooyinta ka horeysa uu fuliyo waa haldheeri iyo dadaal badan oo taliyaha iyo ciidanka asluubta ay sameeyeen waxa ay wax weyn ka taraysaa magaaleyntii fudidii amniga fudidii xukunka iyo ismaamulka caasimadda iyo dalkaba dhammaan ahaan Ahmed Ali Kaahiye warbaahinta qaranka Muqdisho